السلام عليكم صاحب يال halkan waa Sahil Madaala Sports waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxa idin leenahay jimco wanaagsan iyo sidoo kale ciid wanaagsan idin leenahay haddii aan ku bilaawno ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamed Salah ayaa la sheegay inuu san ciyaari doonin kulanka u dhaxeeya biri Liverpool iyo sidoo kale Brighton sida uu sheegay tababaraha Liverpool ayaa xaqiijiyay in Maxamed Salah uusan ciyaari doonin kulanka Premier League ee Liverpool ay la ciyaarayso Brighton Hove Albion maalinta Sabtida Slot ayaa shirkiisa jaraa'id ee ka hor kulanka Jimcaha ku bixiyay warbixin dhaawac ku saabsan Salah isagoo sheegay in rajeynayo in xiddiga reer Masar uu dhaawac yar ka soo gaaray kulankii Galatasaray bartamihii toddobaadkii hore uu soo laaban doono kadib fasaxa caalamiga ah iyadoo 33 jirkaan maqan yahay taageerayaashu waxay weli karaan inay dhibco lumiyaan kulanka Brighton balse waxay haystaan 54.5 boqolkiiba guul ah marka uusan Salah ciyaarin xilli ciyaareedkan macnaha Liverpool waxay haystaan markuusan Salah ciyaarin xilli ciyaareedkan 54.5 boqolkiiba marka la isbarbar dhigo marka wax oo la qiimeynayo 100 ayaa loo qiimeeyaa mugta 54.5 boqolkiiba Liverpool guul ay haystaan loo dhahay marka uusan Salah u ciyaarin ayaa loo dhahay Salah ayaa laga saaray safka ciyaartoyda dhamaadkii 2025 ayaa la yiri Salah waxa laga saaray 2025 dhamaadkii markii uu hadal ku sheegay kooxda kadib kulan ay leeyahay Leeds United macnaha kulanka Leeds 2025 dabayaaqadii Salah hadal uu sheegay oo tababaraha ka cadeysiyay ayaa ciyaaraha laga saaray ee lire wuxuu sheegay safarka Inter Milan macnaha muusan ciyaarin kulankii Inter Milan balse Liverpool waxay ku badisay hal ewer macnaha kulanka Inter Milan ay u bixiyeen Salah muusan ciyaarin waxayna Liverpool ku badisay hal ewer intaas ka soo kooxay xiddigii hore ee Chelsea ayaa sheegay 10 kulan oo kale dhammaan tartamada xilli ciyaareedka macnaha 10 kulan ayuu sheegay xilli ciyaareedkan 2025-2026 arintaas waxay qayb ka ahayd ka qaybgalkii AFCON iyo sidoo kale Slot oo siiyay ciyaaryahanka kulamada koobka macnaha arintaas waxay qayb ka ahayd markuu ka qaybgalay koobka AFCON ee Afrika ee sidoo kale markuu Slot nasinay oo dagaalka kala dhexeeyay waaye guud ahaan Liverpool waxay hal mar kaliya laga adkaaday markuu Salah ciyaarin intuu Salah maqnaa Liverpool hal mar ayaa laga adkaaday waxaana ka adkaatay kooxda Crystal Palace ee Carabao Cup-ka ee ka reebtay waxayna heleen Liverpool 6 guulood isagoo aan ciyaarin Salah Liverpool waxay heshay 6 guul ay heshay isagoo aan Salah ciyaarin 5 kulan barbara ay ku dhamaaday macnaha 12 kulan oo Salah ka maqnaa 6 guul ayaa la galay 5 barbara ayaa la galay halka midna waa laga adkaado taasi waxay ka dhigan tahay in boqolleyda guusha Liverpool ay ku fiican tahay markuusan Salah joogin in kastoo ay jiraan ay leeyahay barbaro Liverpool waxay la kulantay 12 guul daro marka uu Salah ciyaarayay Salah season-ka intuu ciyaaray Liverpool 12 guul daro ay ku kulantay marka la barbar dhigo hal guul daro oo kaliya markuusan ciyaarin macnaha Liverpool sanadkan intuu Salah kulamada u saftay 12 kulan ayaa la garaacay intuu Salah uusan ciyaarin season-kan oo kulamada uusan ciyaarin Liverpool hal mar ayaa kaliya la garaaca jiray Crystal Palace ayaa koobka ka reebtay Carabao Cup-ka marka uu tababaraha waxa la weydiiyay goorta uu soo laaban karo wuxuu yiri wali lama hubo in Salah si rasmi ah u soo laaban karo kadib fasaxa caalamiga maadaama uu qabo dhaawac muruqa uu yiri laakiin taageerayaasha uma baahni inay aad u walwalaan maqnaanshaha haddii ciyaaryahanka da'da yar ee Rico Moha la siiyo fursad badan tababaraha Arne Slot ayaa sidoo kale sheegay inuusan diyaar u ahayn kulanka Sabtida Liverpoolna waxay rajeynaysaa inay helaan guushii 2 toddobaad gudihiis kadib markii ay 4 ku garaaceen dhamaadka toddobaadkan Galatasaray Arbacadii Salahna waxa laga saaray kulankaas kadib markuu dhaliyay gool qurux badan Slot ayaa yiri ma diyaar ah Brighton wararka fiican ee Liverpool waa inaan galeyno fasax caalami ah wuxuu yiri Salah waa maqan laakiin wararka fiican Liverpool waxa yiri waxaynu galeynaa fasax caalami hal toddobaad kadib wararka xun ee xulka Masar wuxuu yiri Salah uma ciyaaray waa yiri waxaan rajeynayaa yiri sida hore uu sameeyay inuu si degdeg ah u soo kabsado dhaawaca maadaama uu si fiican u daryeelo jirkiisa yiri waxaan rajeynayaa uu leeyahay inuu dhaawac si fiican u soo kabsado maadaama jirkiisa uu daryeelo taariikh ahaan waxa uu ku soo laaban karaa si dhaqsi badan ciyaartoyda kale 2 toddobaad oo kaliya ayaa naga xigta sidaas darteed waxaan rajeynaynaa ayuu yiri inuu markaas diyaar noqdo saaxiibayaal warbixintii Salah intaas ay noo ogtahay
waxaan rajeynaynaa inaad subscribe noo saartaan aad 100 subscribe na gaarsiisaan maalmaha farxadda ciida dartood aad anagana ciid mubaarak ah noogu dhigtaan 100 subscribe. Mahadsantihiin saaxiibayaal.